موضوع أن كهذا أو ربنا عام ما نصوب بدي كهرت موضوع كان له بوك كرمها وموضوع أنا سمينا دراسوين كان وحنا سمينا يكون إسقال بقول إسديت إسقال إلى هالدر وحنا صوب بدي قطونا أركتي ذي أقدم بايسي أن أقدم بايسي أن أرك إلى تهاي conclusion شيء أي تهاي أو رأي جيجا أنا أو قرارات أسوأ سمينا أيام ربنا صوب بدي taasuna waxa waaye waxay ay ku theme tahay amba ay ku wada maraysaa professor Kaynan laakiin asaguna waa iga af Soomaali badan yahay oo falkin iyo waxa uu la imaanaya laakiin anigu ma aqaan anigu aad af Soomaaligiisa u sheegay ma sheegi karo tan kalena waxa waaye aniga soo si falsafi oo xoog badan u sheegay aniga waxaan isku dayay si popular ah oo dadweynuhu ay fahmi karaan inaan arrinta ku soo koobo laakiin fikirku waa isla asig marka waxa ugu horeysa waxaan ka bilaabayaa sii socodda waxaan marka rabaa inaan idin sheego maadaama aan rabo inay wax sahlan noqdaan oo la fahmi karo oo dadka ay wada qaadan karaan falsafo iyo waxaas badan aan lahayn graphic presentation adin sameynaya hadal kuma jiro wax qoran ma laha masawiro iyo graphic ayaan rabaa inaan ku soo bandhigo waxa ugu horeysa rabaa inaan soo bandhigo waxa waaye ma waxaan rabaa inaan idinka ilaabay inaan idin sheego mowduucan waxa ugu dhaliyay aniga waxaan ahay engineer aan ahaa marka dhalinyarada ahaa professionkeyga wax waa engineer marka 1989 ayaan waxaan bilaabay jaamacadda reer Magiil anigoo rabaa inaan culuumta taariikhda barto ayaan galay marka waqtigaas ayaan waxaan la yaabanaa dadkayno dagaalamayo jabhadihii iyo qabiilkii iyo muslimiintii iyo wadaadadii iyo Soomaalimadii ayaan la yaabay marka waxaan isku day inaan darso shakhsiga Soomaaliga marka shakhsiga Soomaaliga inaan darso marka waxaan ka bilaabay marka engineering laga hadlaayo waxaa la fiirshaa ma ogtahay 3 dimension la fiirshaa Soomaa dimension afaraad jiro oo waa la jaraa marka dhaxda laga fiiriyaa marka waxaan dhiray ruuxa Soomaaliga bal maskax halka miyaan ka jarnaa meesha halkan ka saarno oo aan ka gooyna foqankooda maxaa fikir oo ku dhex jira horta waxaa ku dhex jira marka 3 arrimood oo muddo 3 sano aan ka shaqeynaya aan la isku khilaafay karinba professor Kaynan waa sheegay dad badan way ogyihiin waxaad ogtihiin waxaa ku dhex jira ninkan inuu reer yahay Soomaaliga inuu muslim yahay iyo inuu Soomaaliya wax kale waa ka dhex waaya aniga ruuxa Soomaaliga professor Kaynan qodobada marka uu sheegay uu ku daray reerka dhaqankiisa waa reeraha waxay naqaan kuwa reer guuraa iyo kuwa xoogaa yar beeraley oo kala badan ay noqonayaan laakiin saddexdaas asalka ah waxaan darsaayay markii muddo dheer magisterkan ku sameeyay marka waxaan ku sameeyay marka mowduuc la yiraahdo tribalism nationalism and Islam the crisis of political loyalty dadkii waa bas ku yaacsayihiinba دراسات مركز سميها كبعد وسووا ذي وعند درس مركز ضدك صوماليات قبيل ما يغنين ما يحصل حتى قبيل ما يغنين الإسلام كان سوء فهم سيين فهم واقع خلطين صومال مثلا واقع خلطنته صدق هذا أحرمه كل حاجة ضدك صومالي قام مركز أو أم لا يهاي إنه روميسيين فهم جاي وهاي ستامبا صدق هاي ستامبا يا definition هذا اللي ويديو إلى توابر بدنا اسمه أرضي معلمين يا بدل مقطع ما دفاعين قراي كران قبيلة يا قبيلات إسلام كل شيء يا وعرك ترى سيل سوق خلافسين إسلام كإلهي اسكو شيء كران ولا يغاني اسكو عسين سو معلم هذا اللي هو شيء أنا ما بيغانين ببا أفريقيا كتا يحسو ما يغانين مركا وحكى على صنع قوانين أو لا ياب نقطي على قدر كذا حاجة تستحدود ما حكى حاجة إسلام كي يا قبيل كي يا صام معلم هذا استحقر صما مركا ميت كستنا ما يغانين mid kastana ma difaan garay kara calaaqada ka dhaxaysdana ma yaqaanin marka Soomaali lagu bacay ma waxaas marka lagu bacay oo runta xaqiiqo ah ayaan aniga ka bilaabay marka waxaan ka bilaabay marka maadaama aan musaalaxa ka shaqeeyo problemka Soomaalida xaq ku jira waa marka problemka halka waxa u jeediyeen mujtamaca Soomaaliga wuxuu ka kooban yahay bulsho isticmaalka ka horeysay oo waxa u talinaya kaab qabiil iyo culumo Soomaa labaas u talinaysa kaab qabiil iyo culumo aan dirsanayn oo saaxiibo ah oo seedi abti adaar isku asaas ma
وقبلها استقليت كأي نخبضي هاين برشدة marka colaada kama dhaxayn division of labor waa ka dhixi shaqadan waa isla lahayn marka mujtamaca asaas isagoo ah ayaa waxaa timaday modern state waxaan idin sheegaa waa la wada sheegaa laakiin siyaabo kala duwan loo sheegay dadka dhan waa wada sheegeen dawladdii baa ku fadhiisata marka bulshada waxay tiri dawladdan waxay ku dhisan tahay waxaa lagu dhisay nidaam la yiraahdo modernization theory modernization theory waa nadiirada alxadaatha carabiga نظرة الحداثة معناها هذا وحاواية لقن كان ضد كانوا أي ليه هنا استعمار سنة لقن كود ولقن حن وحافي عن دولتنا مدينة مركا واحد لقن كود على بابيو أو ضد كانوا لقن كينا يشان هذا يلا هبينا هرو مرجعان وأصلا تصوى مركا قضبت الليها مركا قبيلة لا درنا قبيل هل كاسة كتير إسلام كا حافظي سايجوك مركا الليها كريستان واي إسلام كتير كريستان قبل ميتي واي مركا إسلام كي لا درنا أو قبيلة لا درنا وح كلام هايسنا عندك وحنا ضد مسلمين وقبائل سما لبضان هايسنا حلالات درنا الدولة دام كانت مركا كانت هاي هالكاس مركا كانت سيسو عهده waxay la mid tahay marka dawladda Soomaaliyeed timid marka mid doqona oo geedkii uu ku fadhiyay meeshaar dhacay ku dhifanay inuu go'aa shak ma ku dawladda marka lixdan ka saddex sano ka bacda burburtay waa inta meeshaarta jaraysa waqtiga ku qaadatay inta meeshaarta u jaraysa ugu dambaysa geedka soo dhacwa ku socda waxaan marka halkan ka hadlaynaa maxaa halkan waxaan ka hadlaynaa challengeska Soomaalida ee waaweynka challenges taxadiyaadku waa badan yihiin turunturooyinku waa badan yihiin saddex arrin ayaa Soomaaliya haysata koow mid koowaad waxaan ku magacaabay deegaanka aan deganahay meel istaraatiiji ah istaraatiijigaas oo marka aan difaaca karno tabar darana marka ummad kasta waxay rabtaa inay qabsato anagana tabaraan ku celinna malihin marka aan tabarta xoogaa lahayn oo dawladaha lahayn isticmaalku waa iska celina Soomaaliya dawladda ma lahayn ilaa muddo dawladdu u joogaan markay jirtay Portugiiska celis saas ma hoo dawladdii Soomaaliyeed Axmed Guri madaxda ka ahayna xabashida celis markii labadaas la waayay qarnigii 17aadna 200 sano qabaa'il la noqday fragmented kala qaybsan markii la noqday waxay noqdeen dad daciifa waay daciifa marka dhulkooda waa la qaataa ee shaqadka la iska dhaafo haddii baa daciif tahay waa la isticmaalsadaa ma waa lagu isticmaalsadaa hadda waa lagu qabsadaa adiga maxaa u tabartarantaa waa ma iska celisid taas ma tahay manhajkaas manhajka islaamka waa oo laba asqaabaadku musiibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hada maxaa ku xigay والله من عند أنفسكم مركز مسكين أنا هاني وقت ما الدولة اسمه نحرسة الدولة دو حوق يقول سنين ولا كله حوق بديا هذا مركز أخبار دارنتا ولا وقفصها مركز شاقة دولة أجنبية هالكاس كله ما تشاك ذا قدم كلا بعض وحاواي نمركز سياسيين تها نمركز وحاواي استعمار كمركز تحدي كلا بعض ودولة قبيعة مركز دولة قبيعة صومال وهي درشنتا أنا سكوت كنا ربنا لابا اسكت مدي لابا اسكت مدي شقة ما قباني سد حد مقنع بعد قوبين مركب بعد قوبك أيكون كم مقنع أنت اسكت أنت مركب وأساس مقطع مركب بعد حواي فكر كأهاي شنطة صومالية أن كانوا أن تبر الله هاي واستراتيجية الوضع ما هي استراتيجية قابك أو خلطين هو قدام كسد حالنا وحواي وحلوكم مقعابه وحال يراهبا وحال نقول دعي وحا محو ahaa dawladii la sameeyay lixdankii waxay noqotay dawlad Allah adadkeeda waxay la soo istaagtay qabiilada la deeraynaa iyo islaamka la deeraynaa waxaas waa kala kartaan marka waxa waaye geographic muxuu ahaa challenge-ga dawlad qabya ah iyo dawladii dadkeeda la culowday saddexdaas ayaa aasaas u ah konfliktga Soomaalida hay sii socon marka culumadii aad darasta marka aqoon-yahanadii adduunyada joogay waa darseen cilmi baaris la sameeyay dadku marka waxay u qaybsameen schools of thought saddexdan arrinaa lagu analyse gareeyay marka anthropology waxay keeneen qabiil iyo qaran wax la yiraahdo qaran qabiilaa la diraya fiican waa theory of modernization idin sheegay way xadaafadii waa halkaas
ay keeneen marka qodobkan la leeyahay la dagaalamo qabiilka iyo waxaa la diray nimanka xoojiyo waa nimankaas qodobka labaadna waxaa waa markaan hanti wadaaga noqonay ayaa koox waxaa soo baxda marka ku analyse garaysa wadan hanti wadaaga oo dhahaya waxaa waaye bal capitalism systemki iyo ka dhaqaalihii hanti wadaaga iyo sheekadaas la imaanaya ayakana muddo yaray jireen soo mahayn qodobka saddexaadna waxaa waaye koox saddexaad oo burburka markuu dhacay professor maxamed mukhtaar iyo madax u ah waxay leeyihiin marka ku mashquulsan yihiin leeyihiin taariikhda la qoraba waa taariikhda dadkan afka mayga aan ku hadlino meelahan jira marka taariikhdoodii iyo say jeclaayeen la qoray dhaqankoodii la qoray gabayooda la qoray heesahooda la qoray annaka ma ku jirno daan nimankeenan koonfurta joogo oo afka mayga ku hadlo marka waxay yiraahdeen waa taariikh aan loo dhamayn warac Soomaa ay keenan ayakana saddexdaas marka iskuul ayaa soo baxeen saddexdooda markaan akhriyay oo naalaas gareeyay waxay qoreen oo kulligeed waa naqdiyay marka haye ku soo naqdigu marka muxuu noqday waxaan keenay fikir leeyahay comprehensive perspective waa aragtida shaamilka ah oo dhammaystiran oo mujtamaca Soomaaliyeed aan dhinac gaar ah u ordaynin aragtidan marka sidaas ah waxay ka bilaabatay aniga marka hore aan fahmayo waxaa waaye islaamkii baa laga saaray taariikhda dumarkii Soomaalida taariikhda waa laga saaray labadaba taariikhda kuma jiraan marka waa mujtamaca nuskiisna taariikhda kuma jiro islaamka dadku rumaysnaana taariikhda kuma jiro marka taariikhda waxay noqotay beelo qabaa'ila iyo isticmaar ka dhaxaysta ayaa lagu soo koobay Soomaali marka taas markaan fahmay muddo markaan joogay afartan qodob soo baxo ee ka midaysan yihiin saddex oo runtii aad iyo aad Soomaalida gees u riixday oo taariikheeda ku dhashay mid waxaa waaye exceptionalization Soomaali haddii aan nahay Soomaali bini aadamka ilmata hadday qabiil taa bani aadam waa qabaa'il hadday muslim taa waa muslimiin hadday gaajaysan waa gaajaysan yihiin maxaa Soomaali uga bedelantaa bini aadamka yani marka waxaa jira waxa la yiraahdaa Soomaali gaar laga dhigayo jasiiratul waqwaq laga keenay oo dadka lamid ahayn concept ah jira kaas marka waa khalad waa la dirir aniga colonization waxaa wax kasta in qabiil lagu fasiro hay wax kasta waa qabiil lagu fasiro macna ma taqaanin macnaheedu waxaa waaye jabhadihii waxay halayaan qabiilkooda halay asaas ma tahay tafsiir kasta waa qabiil marka macnaheedu waxaa waaye ruux dambiilaha ma jiro waxaa jira qabiil marka laga hadlaa ruux dambiilaha ma jiro personal responsibility ma jiro marka saa darteed waxaa meesha laga saaray personal responsibility ruux mas'uul ka ah dhibka dhacaba ma jiro haddii aad damacdo inaad ruux khaldanaay wax sheegtaan waxaa lagu leeyahay qabiilkeena maalin waxaan xasuustaa qisadan kaska fiican yihiin waqtigan oo kasoo muhiim ah aniga oo muxuu ahaay lecture ka akhrinaya Nairobi dad dhalinyaro ah oo soo yimideen meesha ayaan waxaan siyaabare aan kritikaaray marka shirka ka soo baxay ayaa waxa iga dabiyo laba dhalinyaro oo inta gudgudan oo xanaaqsan hore Maxamed Saadar maxaa ka qaaday Maxamed Saadar madaxweynihii waa idagu maxaa ahayd marixaan bay qabiilka samatiin waxaan ala kana tolkay waa qabiilkeena bas inta kana tolkiina ha aadana madaxweynihii waa khaldaba waa shay khaladkiis fiiri lama ogalaba in la sheego inta Soomaali madaxda ahayd iyo kuwa hadda joogto hadda ma inaad ka hadasho wixii ka dhaxay waxa laga qabiil la ka hadlaysaa lagu haystaa ee qofka ma hadlayst marka colonization halkaas oo ka yimid secularization kana waxa waaye in mujtamaca Soomaali marka laga hadlaa aan dhaqankiisa iyo diintiisa islaamkiisa laga hadlayo fikir qayaxan oo galbeedka laga keenay looga hadlayo cilmaaniya midda afaraadna waxa waaye waa rijaali rag in laga dhigo oo taariikhda dumarka baa laga saaro oo aysan muxuu ahaa aysan ku jirinin dhaqanka iyo suugaanta iyo waxay qabteen iyo waxay sameeyeen ma mujtamacaana jiri kara dumar la'aantis soo ku jiraya ma jiri kare wax ma qaban miya wax ma sameyn miya culumay lahaayeen gabayaal lahaayeen suugaanay lahaayeen wax qabaday lahaayeen wax qabadkoodi meelay ku qorantaa lama hayo marka afartan qaybood ayaa waxay ka sameeyeen ku kala takaaray iskuuladaas samaysma saadarteed sii socod marka waxaan rabaa marka ruuxa Soomaaliga ah marka maskaxdiisa waa tanaa waxaan fiirshay qofkii aan fiirinaya iyo bulshadii labadaba qofku waa kana mujtamaca Soomaaliga saddexdaas daa'iro waa daa'irooyinkaas marka ayaa midka ugu dambeeya gaariya kan ugu dambeeya soco waa isku wadana soco siis ha baakan ha ka horeeya ha kaajo
daa'irooyinkaasaa waxaa waaye ruuxu meel u suuragal marka ma aha in mid ka mida la inkiro qabiil lama inkiri karo islaamna lama inkiri karo soomaali lama inkiri karo midka adkaa karaa ma jiro ma kala adkaa karaan inay diraanna maba ahaba waa inay isla jiraan marka si iskula jiraan waa in la organize gareeya maskaxda ruuxa soomaaliga marka si la organize gareeyaya islaam iyo soomaalima soomaalida ka dhaxaysa kulligood soo saas ma aha mabaadi'da islaamka waa inay ugu korayso oo la yiraahdo islaamka soo horjeeda ma yeelin kabacdina soomaaliya dadkayna dowladnimadayna waxay heshiis kuna kabacdina ruux kasta bareerkiisa iska aado wanaagooda uu ka shaqeeyo wax dhibaato ma leedahay dib ma leedahay saatan horta la rabaa in la noqdo laakiin saatan lama aha markasta siyaabo kala duwan qaar qabiilku u koraya qaar Soomaalidu u koraysa islaamku oo micno lahayn laakiin fikirka saxda ah dadka inay gaaraan rabo waa saas marka waxa waaye lix scenario baa jirta laakiin kan waa kii ugu dambeeyay oo saas in noqdaan raba dadku waxaan ku xujeeyaa maskaxdeena bal fiiriyo sa u fikiraysaano saa ma u qaabaysan tahay mase maskaxdeena waa bakhaar waxa waaye wixii u horeeya lagu shubo mar islaamaa ka soo baxa mar qabiilaa ka soo baxa mar soomaalida ka soo baxee mar habeenka salaad waxa inta la jirto kaleeto waa guurguura ruuxa Soomaaliga marka wuxuu u guurayaa aawa salaad leeyo duka quraan akhriyo barina dagaal hogaamina qabiil kaas ma ho waa ka quraan akhris badan yahay waa ka tiin akhris badan yahay lacagta umada u taxado oo waxa ku aadaya sad dheer waa ka dhisanaya soo caruurta siinaya kaas ma tahay marka waa guurguura meel gaar ah ma joogo maalin beel taagay maalin Soomaaliba hada Soomaali ku heesa soo ku gabya qabiilkiisa markii la gaaro halla waramin Soomaali marka la soo gaarana islaamkan waa ka akhad baa ka badan yahay saala yeelay dadka marka waa guurguurayaan waa in la rasayaa marka maskaxda waa falkinti magtahay waa in si fiican loo falkiyo marka maskaxda waa in la rasayo farax ma sii soco هذا مركب وحن قلنا مركب سيسع كسع أي ها هذا واحد قف كبار شيء نسمع وحن شيء يا مركب ضدك الليت كوحكومة ضد وينها مساكين تا يلا ظلمني وحن كحلنا النخبة أمة حكومتها أفرتان واي استعمالك كهر لبضانا جرا علماء صوفيا وبطن ودريقوين وهجان له وكلا تنبين له وشقد تقانا كابقبيله fiican oo ayakana labadooda wada shaqeeyaan aan ol ahayn labadana umad waqt isticmaal ay yimiday man dadka qaar ay yiraahdaan cilmaaniyiin ay yiraahdaan laakiin cilmaani ma yiraahdo waa dad muslimiin oo fiican oo laakiin aan aad u fahamsanayn islaamka oo islaamka lagu dhaqmaan dhahin oo raba inay iska sii wataan isticmaalka waxay ka arkeen waa kooxdan waqti madaxda naqad waxooda iska sii wadanayaan islaamkana kama soo horjeedaan on qof lama aha laakiin fahmigaaba sida inta la soo xoogaa markii la joogo nimanka noocaanahay islaam la dagaalanka keeneen waqti waa kuwa culimada dilay waqti qaar badan oo kamid ah xusalka la geliyay kooxdana samaystay marka islaamka saah laga daayo ururada islaamka samaysmeen marka الحركات الإسلامية marka iyo kuwa farqiga u dhaxay maxuu noqday kuwan waxay rabaan waxay isku haystaan tabaacada dawladnimada kuwan waxay leeyihiin dawladda waxaan rabaa islaamku dhaqanto kuwana dawladda arki jirna rabnaa ilii dawladda arki jirna ayaa rabnaa halka waa u jeedaan holac soo ma ah dagaal halkaas oo ka jira dadkan hoose masaakiinta dagaal weyn kama jiro sii soco waxaan rabaa marka aan isla fahamna marka bulshadii say tahay iyo khilaafaadka ka dhaxeeya iyo qofka Soomaaliga ah conflict ka jira waxaan u gudbaynaa marka dib u heshiisiin marka waxaan dhahnaa marka conflictiga in la adfagaray Soomaaliya la yaqaan maxaa Soomaaliya dibka ku dhacay maxuu yahay dibka koobaad waa dawlad iyo shacab dawlad Allah ah dadka ma waxa waaye modern state-ki oo tradition-ka Allah ayaa problem oo dhan ka bilowda aabaheedii hooyada halkaas uga bilowday waxay dhashay marka dad Soomaali oo siyaasiyiin oo siyaasadda aan aqoonin oo dimuqraadiyad aan la aqoonin la baran iyo tartan siyaasadeed xukunka lagu dagaalamay xukunkii la kala xoogay oo lagu diray amba ha ahaato in lagu shubto doorashooyinka 9 sano hore amba ha ahaato qor in lagu xoogay xukunkii marka kooxu qaadatay
dadka kaleetooda xukunka la rabay iyo ayagu waa culloobeen waa elite conflict nukhbada dirarta markay dagaalameen halkaan dagaalameen koox dawladda qaadata Soomaa kooxda kale maxay sameynaysaa reerahooda u tageen marka waxaa ka dhashay marka siyaasad la qabiileeyo oo niman elite oo nukhba ah oo siyaasad raba qabiilka kacshi waxay yiraahdeen dawladdii naga dhaxaysa raga qaatay tolay waa jabhadii saddex ma ho isku dhaleen way moogtahay isku dhaleen way dawladdaana ayaa waxay dhashay kuwaan waxay dhaleen kuwaan Soomaa dawladda burburta Soomaa wax ma soo haray wixii soo haray istil qabiil dilaa wadaad qabiil la dagaalama wadaad kala dilaa waxay rabtaa ahaato fawda Soomaa taasoo waa qaybta saddex afraad waa marxalada alfawda afartaas horta ayaa conflict-ka Soomaaliya afartaas loo qaybi karaa haye سيسو maxaa processkii marka la sameeyo wuxuu ahaa marka processkii hore la sameeyo wuxuu ahaa dawladda fiican ee dadka la soo qumiyo dadka la soo wadaa dadkan dawladdaana la baraa waa la wadaa aqalkan dawladda reer yar istaal geliha marka qaar marka aad fasara ma iraada si loo galo ma aqoono markay galayeen inta isqorjiyeen ay ugu dambeystay gurigana dumiyeen ayakana wax dhaawacay wax dhintay noqdeen la guriga si loo galo ma yaqaaniin Soomaa haye muddo la jooga cartaan nimad marka carta waxa ay dadka Soomaaliyeed ma dawladda loo keeno anaga reeraan lagu qaybiyo reeraan lagu qaybiyo indigenization waa moogtahay systemkii waxa la qabiileeyo oo 4.5 wax lagu qaybsaday asagana muddo joogo waa shaqeeyay waxa marka la rabaa المصالحة بين الدولة والمجتمع صوما إن دولة دانا هوس لو صودقو هناك كان وحلقوم هاي كارا كورب أتسيو إن لك كانوا مرحلة أقويان كتانا هرطالة how to do it مكتوى سؤال كان لكن وحال أسكر وحال ربا سيستم كان نوا شقي وإلا قبيلة وإكستريم سيستم كي وسترنايزيشن كان نوا نو شقي وإكستريم كان صوما سدابا له جيسين يا مركا دولة نمضي ومسألة ما أنت نهرطالة واي oo la taala hay ku soco waa ma dhameeyay halkan marka reconciliation markaan ka hadlayno waa saddex arrimood raba waxaa la rabaa labada elite ee qaar aan dhahay waa nan islamist elite iyo ku islaamistahay mabaadi ahaan waa soo heshiisiin artaan ku soo heshiisiin waxaan ku soo heshiisiin islaamka wax ka soo horjeeda واللقوي يا بعض اللي ذلك الدين شرع وما نقرأ سؤال ما سوي شيء مركا واحد إسلام قاعد وشجع كرا مركا مجرى مركا سياسة لقى هذلا دولة الصوماليات وحيكون شيء سدتك الصوماليات إن الإسلام هو أقمان وحاش دستور أهان ممنوعة وح إسلام كخلاف صن ذلك ممنوع مركا حزب إسلامي أي وحاس إسلام كربته وحكم ربته وحاس مجرى وقبل يقول شيء صوما فرصة ما دي وما كان هولي لكن هذا heshiis kan waa dhacay qodobka labaad ee problem ka taagan yahay waxa waaye culumadii diinta waa la isku khilaafsan yahay waxay u baahan tahay diin la heshiis lagu yahay in kana Soomaaliya wara Soomaa dadkan heshiiska waxa jamaacooyinka jira kulligood diinta ilaahay mid leeyahay oo heshiis lagu wadaya in la kana rabahoon khilaafkan buuqa badan waxa la taagtaagay meelaha dibadda laga keenay iyo waxaas laga guuro waa musaalaxa moogtahay midda saddexaadna waxa waaye qabaa'ilkan maalin kasta ku dagaalamaya madaxayn kaaba qabiilkii waa lagu dirsan ilaa nidaamka ma jiro sharci ma jiro madax dawlad goboleedaha samaysanaya dawladii Talyaaniga samay jirtay madaxa dhaqanka samay jirtay waxaa la rabaa in dib loo organize gareeyo madaxda qabaa'ilka in dib loo organize gareeyo madaxda diinta waxaa la rabaa elite kaanuna ay heshiis ku yihiin dawladnimada war Soomaa saddexdaan maga triangle marka laga hadlo ayaa waxa ay harakaliya nin la yiraahdo baafo oo aan muddo dheer iskala soo shaqeeyay bulshada hay'adka ah ayaa waxaan ka cabsaha marka inuu yiraahdo war aniga hawshayda Cabdiraxmaan oo meesha la kuma jiro kaaba qabiilmi culimada kuma jiro siyaasi mi marka waxaan rabaa meeshiisa aan keenaa rabaa slide-ka ugu dambeeya waa keen marka slide-ka ugu dambeeya waa kana saddexda marka la organize gareeyo saysan isugu dhicin waxaa laga maarmaana strong civil society in la keeno civil society-gaana ma aha NGO-yada yararka ma haya
وبروفيشنال اورجانيزيشنز ururada dhaqaatiirta injineerada beeraleyda magarat jaamacadaha mataqaanaa ururada mataqaanaa professionalka oon ku dhisnayn inay mataqaanaa xoogaa yaroo sandareela ka qaataan hay'ada ajnabi ah aan ku dhisnayn oo professionalis ah ayadana waxaa la rabaa in la dawladdu inay promote garayso oo laga shaqeeyo in civil society strong dalka uu ka jiro marka odayaal organize garaysan culamo organize garaysan elite aan isku tirarsaneyn mabaadi'da dawladnimada bulshada oo strong ah marka la keeno halkaas waxa samaysmaaya waxa aan ku magacaabno stable system of society of state dawlad stable ah oo aan dheelihaynin oo aan dhacayn saas ku imaan kartaa waa mahadsantiin wasalaam calaykum.